السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو هيرو هربد هيغا تابرك انجينيرada mustaqbalka kabaro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kastood heli karto internet adoo booqanaya hurbad.com wama adraaka hurbad waa madal waxbarasho ee laga barto cilmiga IT-ga qaybihiisa kala duwan si uu soo itaabsiya aadna ku baranayso luqadda afka hooyo ee af Soomaaliga af qalaad aqoontu maaha ku soo dhawaaw وحلقتني كونتونيو كواد برنامجكنا تحانها تكنولوجيا TT وبرنامج كسوغلا مدشا يوتيوب كهربت وحنا كفلانقينا تكنولوجيا iyo heerka ay dunida marayso qayb ku saabsan qaybtan كونتونيو كواد maanta waxa ku baranaynaa agabyada guriga yaala ee loo yaqaan connected appliances ee qalabka korontada ku xiran ama IoT devices ayaan ku baranaynaa dunida waxa jira qalab smart appliance loo yaqaan appliances waxa la dhahaa qalabka korontada ku shaqeeya ee guriga yaala ee shaqada muhiimka qabta sida makiinada dharka dhaqda dishwasherka makiinada cuntada karida makiinada qaboojiyaha ama refrigerator waxa loo yaqaan fridge-ka iyo wixii lamid ah waxa loo yaqaan appliances qaarka smartiga waxa ay ku shaqeeyaan ayagoo markaa ku xiran internetka lagana maamuli karo abab ku jira smartphone-kaaga ababkaasood ka maamuli karto gurigaaga qalabka ku yaala wax cusub maaha waxay soo bidhaameen connected appliances ku todobaatameyadii oo company Scottish ee magacooda la yiraahdo Beko Electronic ayaa waxay soo bandhigeen Extend System oo ah qalab u ogol dadka inay qalabka korontada ku shaqeynayo gurigooda yaala inay ka maamulaan meel udub dhaxaad ah kuwaasay markaa ay la xiriirinayeen korontada guriga ku jirta iyo fiilooyinkeeda say isku xireen inta isku xiraan ay hal meel ka maamuli karaan ayagoo dhan maalmahan qalabkii waa sii batay waa uu sii yaraaday wuxuu noqday kuwa aad iyo smart u ah internetku aad uma fiicnayn todobaatameyadii hadda internetkii iyo teknolojiyada badan oo waxa soo baxay fiilo la'aan la isticmaalo sida bluetooth-ka wifi-ga oo u ogol dadka isticmaalaya connected appliance-ga inay ka maamulaan qalabkooda ayagoona joogin gurigooda dunidii waxay maraysaa in lala hadlo qalab oo ku damiyo nalalka dunidii waxay maraysaa adoo gurigaaga ka maqan isgaarsiinta boostadu inta kugu soo gargaraacdo inay ku tiraado waa ku ogaa inaad ka maqantahay dalxiis ku maqantahay libaax ama libaaxad iga furbal albaabka alaabta aan ku dhigay marka telefoonka inta la soo baxdo aad iska hubido ma yahay postmankii aad taqaan ama ninkii keeni jiray isgaarsiinta boorsada warqadaha aad u furto guriga oo alaabta inta ku dhigo aad guriga xirato aad hubido inuu iska tagay libaaxu ama libaaxadu ilaahay amarkiis dunida waxay maraysaa marka in wixii dhan isku xirmeen marka hadaan fiirino faa'iidooyinka ay leedahay in gurigaaga ku xiran yahay internetka oo smart appliances ay taalo hadii gurigaaga ku xirato smart devices wax badan ayuu ku keeni karaa faa'iidooyin intii aad ka walwali lahayd kombiyuutarka madamiyay oo kombiyuutar gurigaaga inaad damiday waxaad sameey kartaa inaad meel kale adoo jooga inaad telefoonka inta furto aad kombiyuutarka ka soo damido waxa jira waxa la yiraahdo indoor positioning system IPS kaasoo awood u leh inuu ogaado alaabta gurigaaga ku taala inuu ku sheego meel alaal meesha yaalaan dadka guriyaha ku jiraahay waxay isticmaalaan sansaro ee u sheegaya alaabta guriga u taala ayagoo ka maamulaya ababka taasoo siinaysa inay ogaadaan data ku saabsan alaabta guriga u taala iyo waxay ogaa karaan oo kale qalabkaas inta uu daarnayo la isticmaalayay waxay kale ogaa karaan qalabkaas korontada inta uu isticmaalayo kale faa'iido badan ayaa ku jirta in gurigaagu yahay smart home hadda waxa jira dunida smart meter waxa la yiraahdo oo korontadii inta lagu xiro gurigaaga internetka lagu xiro la ogaanayo gurigaaga inuu yahay mid tamarta korontada si fiican u isticmaala ama tamarta u isticmaala si xad dhaaf ah marka connected appliances ku waxa kamid ah qalabka security-ga ee gurigaaga ka dhigi kara mid amnigiisa la isku halay karo marka internetka qalabka ku xiran ee security-ga ah gurigaaga iyo dadka ku nool ayay hubi karaan amnigooda waxa kamid ah smart locks waxa la yiraahdo ee aad albaabkaaga guriga inta ku xirto albaabka hore guriga ee marka ogaa karo logga kamerada ku xiran facial recognition oo leeyahay dadka guriga loo ogol yahay inay soo galaan iyo dadka guriga aan loo ogoleen inay galaan oo la aqoon marka dadka aan haybadooda la garanaynin waa laga ilaalinayaa in albaabka laga furo dadka la garanayo haybadoodana hadii la hubiyay waa laga furayaa albaabka waxa jira qalab sheegaya hadii guriga dab oo ka dhici rabo oo qiica dareemi kara isku dayay marka inuu korontada dhan guriga ka jaro si uusan gurigu si fiican ugu sii guban hadii uu dareemo xataa carbon monoxide wuxuu sameeyaa inuu damiyo si qiica awsan u sii badan xataa wuxuu awood u leeyahay qalabkaasu inuu waco gargaarka degdega sida inuu waco dabdamiska oo kale ama booliska oo kale inuu waco dunidii waxay maraysaa guri asaga dhan wada smartiya waxa jira digital assistant wax la yiraahdo ee ah qalabyo ku caawinaya adoo markaa ku maamulaya codkaaga internetka ayaa inta galaan ay su'aalaha aad weydiiday ka jawaabi karaan waxaad kale awood u leedahay qalabkaas inaad codkaaga adoo maamulaya aad gurigaaga qalabka yaala ka maamusho sida inaad
nalka marna daarto marna damido albaabada aad xirto mar inaad kolbeegta ama temperature-ka ama AC-ga ha noqoto heater-ka inaad xaraaradda gurigaaga ka maamusho ama cimilada gurigaaga inaad maamusho tusaale kale qofkaani waxa uu fadhiyaa kursi kafee buu cabayaa wuxuu rabaa inuu xiro albaabka garaashka gurigiisa oo leeyahay baabuurka ugu jiro saan loogu soo dhicin asagoo adeegsanaya marka smart device oo assistant ah oo digital assistant ah ayuu wuxuu farayaa asagoo codkiisa adeegsanaya waxaad xirtaa albaabka garaashka waa uu yiri marka close the garage door automatically waa la fuliyay oo garaashkii waa la xiray garaashka albaabkiisii waa la xiray si aan baabuurka looga xadin libaaxa ama libaaxadda ilaahay amarkiis connected appliances-ka waxa kale kamid ah smart plant monitor waxa jira qalab yar ee lagu xiro haddii geeda gurigaaga ku yaalaan ama doog aad ku maamuli karto ogaa karto geedaha sansarada inta ku xirto inay ogaadaan inta biyaha ay qaadanayaan maxaa yeelay xogaa laga soo aruurinayaa monitorka samaynaysa say u ogaato inta oo marayo qoyaanka ama xididada inay biyo haysato iyo inay qoyan tahay ciidda lagu abuuray geedka si markaa inta fariin ugu dirto qofkii iska lahay oo markaa haddii uu jiro si markaa loogu soo furo biyaha si automatic ee markaa inta la waraabiyo geedka laga xiro markii uu buuxsamo reservoirkiisu markii geedka inta ku filan lagu waraabiyo ee la ogaado in xididadiisa iyo ciidda haysa salkiisa inay qoyan tahay sansarku oo ka jaro biyaha dunidii halkaasay maraysaa libaaxad ama waxaad awoodaa adoo sariirtaada joogan weli xataa hurdada ka soo kicin inaad smartphone-kaaga inta furto jikada qalabka kafeega kuu sameeya kuu yaalla inaad ka kontrolsho adoo markaa dhahaya kafee samee weliba cappuccino laba qaadoo sokor leh aad samaysay libaax adoon xataa weli hurdada ka kicin intaada soo cadaysan ka hor waxaa kaloo kamida connected appliances-ka waxaa kaloo kamida guriga adeegtayaalka adeegaya waxaa jira roobaadyo adeegaa ah ee kuu adeegaya tusaale waxaa jira vacuum ama waxa loo yaqaano hooverka automatiga ee ku xiran wifi-ga ee aad ka maamuli karto smartphone-kaaga adoo markaa u sheegaya inuu guriga dhan kuu nadiifiyo waka maanta dhan wuxuu ku xiran yahay connected appliance waaye guriga qashinka yaallo dhan oo maanta dhan dhuuqayaa qaadaya haddii gurigaagu leeyahay doog hore uga yaalla ee indhuhu ku diirsadaan waxaad kaloo heli kartaa robot kuu samaynaya inuu doogga hadduu caleentiisu badato ama cagaarkiisu bato inuu asaga dhan ou si fiican kugu xardho oo si fiican dhaayaha wax uroon uga dhigo dhulka ku dhajiyo haddii oo cawskiisu batay waxaa jira robot alarm clock saacad ku kicinaysa luga leh kaa cararaysa markay qayliso si ay sariirta inta kaaga soo kicido ka daba orodo ee aad tiraahdo dami snooze dismiss ma jirto wuxuu ku leeyahay kaalay kam soo istaag haddii aad soo dhaqaaqda mar enerjigii dhiiggii kala kacay wadnihii matoorkii soo kacay adigii dhan aad ka soo kacda sariirta waqti aad ku laabataa ma leh marka waa assistant robot ku caawinaya marka wuxuu kugu qasbayaa inaad inta ka soo kacdo sariirta ee aad asaga damiso qasabkaasaa waxay kugu keenta marka inaad shaqadii aaddo lazy ass bal u fiirso haddii aad tahay waayo qof wehsilow ah ee u baahan in robot oo ku kiciyo libaax ama libaaxad waxaa jira qalab ku xiran abab ee smart devices ayakuna ah qalabkaasoo kuu ogol inaad ogaato xaaladda ay ku sugan yihiin markay gurigaaga yaallaan sida haddii aad haysato frinjiyeer ku xiran internetka ee smart fridge ah wuxuu kuu sheegi karaa cuntada ku jirtaa inay tahay mid la isku halay karo la cuni karo weli dhicin haddii aad haysato kafee saan hadda ka soo hadlaynay mishiinka sameeya wuxuu kuu diyaari karaa kafeega inta aadan weli xataa aadan labisan oodan soo qubaysan oodan cadaysan dunidii waa isbeddeshay waa kana smart coffee maker smart fridge ee ku dhahaya rootigii caanuhu waa dhaceene soo gad smart cooker ama stove smart dishwasher kii aad u baahan tahay smart hoover adduunkii dhan smartii oo noqda libaax ama libaaxad ee xaad kala socotaa smart appliances ama connected appliances ayaantan waxaa guryaha aad iyo aad ugu soo caanbaxaya in laga dhigo smart homes ee ah kuwa laga maamuli karo internetka ogaaw waxaasoo dhanna waxay wataan khatartooda iyo in lagu soo xadgudbo waxyaabaha kuu asturan adiga ee loo yaqaano breach of privacy hacking ilaahay amarkiis libaax ama libaaxad waxaan rajaynayaa xalqadan kooban inaad wax badan ka faa'iiday ku saabsan connected appliances maxaa la dhahaa waa qalabka korontada ku shaqeeya guryaha yaalla ee internetkii lagu xiray laga dhigay connected waxaan ku xasuusinayaa in hoyga tababarka injineerada mustaqbalka uu yahay madal waxbarasho ee aad ka baran karto cilmiga IT-ga qaybihiisa kala duwan fadlan haddaad ka hesho muuqaalkan nafaduuli ama nafaani hoos ku falanqee haddaan dhacda kaaga dhigana dhaliil ama dhiirageli dhambaal hoos dhig mahadsanid mudane ama marwo hana iloobin inaad rugta hulbad rukumaysatood rukun ka noqoto riixdana gambaleelka si wax walba loogu soo rido mustaqbalka kugu soo rucleeyaan
mahadsanid aad baan kuu salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh